magacayga waxaa la yidhahdaa Muna Xandulle waxaan ku koray deganaan jirana waddanka Holland horta waxaan maxaa la dhahaa ka soo baxay jaamacadaheega intaan ka soo baxay kulli caafimaad bay ahaayeen waddanka Holland waa ku soo bartay maxay ahayd mashruucii aan u imid sanadka hore wuxuu ahaa caafimaad kadib markaan ku soo noqday xamar waxaan maxaa la dhahaa xiriir la yeeshay xarumo badan oo caafimaad maxaa la dhahaa caafimaad ka shaqeeya ama bara sida jaamacadda Banaadir professorka maxaa la dhahaa iyo aasaaska dadka ninkii ku jira Dr. Garmar la dhaho baa igu maxaa la dhahaa encourage gareey inaan soo noqdo waxyaabo qabto maadaama waxyaabihii aniga aan ka soo bartay waddanka Holland molecular biology waa mataqaanaa maado aan waddanku uusan aqoonin lahayna baaritaankaasayto ama qalabkii lagu samayn lahaa ama aqoontii lagu samayn lahaa ee aad ugu yar tahay ama aysan jirin sidii kadib markii uu maxaa la dhahaa xilligii aan noqonayay gaari waxaan la xiriiray xarumo maxaa la dhahaa ku yaala waddanka Holland oo ayaga ama qalabkii ama maxaa la dhahaa tababaradii haya maxaa la dhahaa macquulna tahay inaan maxaa la dhahaa la imaado waddankan marka sidii baan xiriirkii bilaabay aan isku xiraayay jaamacadda Banaadir iyo xarumadaas kana shaqaynayay waxyaabihii maxaa la dhahaa ama ha ahaato aqoon ama ha ahaato qalab wixii la keeni lahaa oo u baahnaan lahaayeen maxaa la dhahaa jaamacadaha ama maxaa la dhahaa institutions ku shaqeeya caafimaadka looga faa'iideysan lahaa waddanku wuxuu u baahan yahay dadku waxay u baahan yihiin sidii daraaddeed baan waxaa macquul noqotay mashruuc wasaaradda arrimaha dibadda oo Holland ay soo bandhigtay aan uga faa'iideysto fursaddaas aan ku soo noqdo wixiina aan maxaa la dhahaa qorshihii aan galo aan ku keeni lahaa maxaa la dhahaa ama tababarka ama qalabkii horta waddanka waa waddan dhismaaya maado kasta oo aad soo baratay ama wax kasta skill kasta oo aad mataqaanaa aad fursad u heshay inaad aad barato waa loo baahan yahay Soomaalinimo haddii kugu jirto Soomaalina aad tahay ama aad ku abtirsanaysid Soomaali waddanka adaa iska leh daaladaha qurqurxoon oo dheer dadku dhisteen anagu ma lihin soo runta haddii la isku sheego ama yarow ama weynow ama wax soo bara ama iska dhaaf akhlaaq iyo edeb iyo maxaa la dhahaa hami waddanka aan leeyahay oo aan wax ka dhisanay haddii kugu jirto soo noqo at least arag waxa jira fiiri markaas meesha aad maxaa la dhahaa aad ka geli lahayd waddanka iyo waxaad samayn lahayd oo ku soo baxayaan soo qofnana ma taqaana ama dhakhtar soo baro ama fuundi ahow kulli waa loo baahan yahay waddanka